Cabitaanada nasashada ee ka hortaga walwalka ayaa suuqa ku soo kordhaya. Ma badbaadad baa? Dunida oo aan badanayn wakhti ay ku nasato, cabitaano cusub oo shaqo gaara leh ayaa ballanqaaday inay taas nagu caawiyaan. Cabitaanada loo yaqaan cabitaanada nasashada oo loo suuq geeyo sidii dawooyin dabiici ah oo welwelka yaraynaya ayaa ka soo muuqanaya suuqyada waaweyn iyo bakhaarada online-ka ah, iyagoo ah beddel deganaan leh oo ka duwan cabitaanada tamarta leh ee kafeynka ama kamriga. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka badan. Ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Laakiin ma shaqeeyaan oo ma badbaadad baa? Cabitaanadan waxay badanaa isku daraan soo saarida geedo daawooyineed, amino acids iyo adaptogens, walxoo la rumaysan yahay inay jidhka uga caawiyaan la qabsashada culayska. Walxaha caanka ah waxaa ka mid ah L-theanine, amino acid dabiici ah oo ka jira shaaha cagaaran. Cilmi baaristu waxay muujisay inuu kor u qaado nasashada oo uu yareeyo culayska iyada oo aan hurdo keenin. Waxay saamayn ku leedahay kimikada maskaxda sida serotonin iyo dopamine, halka ay hoos u dhigayso cortisol, hormoonta culayska ee jidhka, taasoo abuurta dareen deganaan ah oo aan wax ka dhimin feejignaan. Magnesium, macdanta muhiimka u ah shaqada wadnaha iyo maskaxda ee caafimaadka leh. Waxaa sidoo kale lala xiriiriyey hurdo wanaagsan iyo yaraynta la seexan waayda. Daraasaduhu waxay muujinayaan inay taageerto soo saarida melatonin oo ay ku xirto receptorska GABA, kuwaas oo caawiyo inay aamusiyaan firfircoonida neerfaha oo ay kor u qaadaan nasashada. Ashwagandha, geed dhaqameed oo ayurvedic ah. Tijaabooyin caafimaad ayaa muujiyey inuu hoos u dhigo cortisol oo uu yareeyo walwalka, inkastoo xogta badbaadada muddada dheer ay tahay mid xadidan. Qadarka la isticmaalo daraasadahaas sidoo kale ayuu ka sarreeyaa qadarka caadiga ah ee laga helo alaabooyinka diyaar ah ee la cabbi karo. Leons Mane, boqol bariga Aasiya ka soo jeeda, wuxuu muujiyey saamayn culayska yaraynaya oo daraasado yaryar oo caafimaad ah, laakiin caddayntu weli way yar tahay. Xeed cannabidiol, walax aan maskax wareerin lahayn oo ka soo baxay cannabis, wuxuu muujiyey rajo hore oo ku saabsan yaraynta walwalka iyo dhibcaha culayska marka la barbardhigo placebo, inkastoo tijaabooyin waaweyn oo tayo sare leh weli ay maqan yihiin. Muhiimadda calaamadaha ganacsi. Qayb ka mid ah soo jiidashada cabitaanadan waa calaamadahooda ganacsiga. Waxay soo bandhigaan hab dabiici ah oo aan sakhraamin lahayn si loo nasto oo loogu talagalay isticmaal joogto ah oo aan lahayn duruufaha kafeynka ama ceeriyaanka kamriga. Mararka qaarkood hab dhaqanka iskiisa ayaa muhiimad u leh, sida cuntada ficilka kaaliya ee in la gabiyo si loo nasto. Si aad u cabto cabitaan wuxuu abuuri karaa dareenka deganaan, khataraha iyo taxadara. Inkastoo ay leeyihiin muuqaal caafimaad leh, cabitaanadan ma aha kuwo aan khatar lahayn. Isdhexgal dawooyin. Walxaha geedo daawooyinka ahi waxay la falgali karaan dawooyinka loo qoray ama ay keeni karaan dhibaatooyin dhinac, gaar ahaan marka lagu cabo qadar badan ama lala cabo quudiya kale. Ashwagandha waxay falkal gelin kartaa dawooyinka qanjirka tiroid iyo kuwa difaaca jidhka yaraynaya. Cod waxay beddeli kartaa hawsha ensaymada beerka, waxayna la falgali kartaa dawooyin sida antidepressants. Magnesium oo aad u badan wuxuu keeni karaa shuban, wuxuuna isku dhiri karaa antibiotics qaarkood ama dawada lafaha. Leons Mane waxay u muuqataa mid si fiican loo adkaystay, laakiin cilmi baarayaashu wax yar ayay ka yaqaanaan saamaynta muddada dheer. Xakamaynta tayada. Suuqa cabitaanada shaqada leh waxaa nidaamiya sharci yar, sidaas darteed awooda iyo daahirnimada walxaha way kala duwanaan kartaa shirkad ilaa shirkad. Tani waa welwel gaar ah dadka uurka leh, naasaha nuujinaya ama maamulaya xaaladaha caafimaadka dabadheera. Qaabka rasmiga ah. Qolofka deganaan wuxuu bixin karaa dareen naxariis ah oo gaaban, laakiin cabitaanadan ma badalaan daryeelka caafimaadka maskaxda ee xirfadda leh. Walwalka dabadheera, niyadjabka ama dhibaatooyinka hurdada socda waxay u baahan yihiin ogaanshaha saxda ah iyo daaweynta. Cabitaanadan waxay la xiriiraan isbeddel caafimaad oo ballaaran oo ka tarjumaya rabitaankeenna wadajirka ah inaan gabiino oo aan dareen wanaagsan. Walxahoodu waxay muujinayaan rajo. Marka si miyir leh loo isticmaalo, waxay door yar ka ciyaari karaan maaraynta culayska maalinlaha ah. Hase yeeshee ha u qaadanin mid wax walba daweeya. Cabitaan qabo wuxuu noqon karaa nasasho macaan, laakiin deganaan waarta weli waxay ku xiran tahay caadooyinka iyo nidaamyada taageerada ee ka baxsan qolofka.